kulankii ugu yaabka badnaa iguna xiisaha iyo xamaasadda badnaa ayaa maanta waxa uu dhex mari doonaa ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed iyo madaxweynaha Masar Cabdi Fattaax al-Siisi. ra-iisul wasaare Abiy Ahmed iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa gaadhay magaalada Sharm el-Sheikh ee dalka Masar si ay uga qayb galaan shirka qaramada midoobay ee isbeddelka cimilada. boqoshada ra-iisul wasaare Abiy uu ku tegay markaasi Masar ayaa waxay tahay haddaba mid xiise iyo xamaasad weyn leh oo weliba xiisad xoogganina ay dul hooganayso. waxaana hadda ay noqonayaa markaasi kulankoogu mid iyada oo labada wadan qarka ay u saaran yihiin dagaal ka dhex qarxo oo khilaafka ugu weyn ee labada dal ka dhexeeya ee biyo xidheenka kaasi oo Masar ay diidanayd inay Itoobiya ay biyo xidheenkaasi buuxiso oo ay ka shaqayso ilaa iyo heshiis ay wada galaan mooyaane. laakiin Itoobiya waa tii dhigaha ka furaysatay biyo xidheenkiina waa la buuxiyey, haddana wuu shaqaynayaa. weliba moogtay sidii electricity laga dhalin lahaa loo dhoofin lahaa ayaa weliba bilaabantay. wadamada jaarka ilaa Itoobiya ayaa loo dhoofiyay ka mid yihiin Djibouti iyo markaa weliba Suudaan laftarkeeda. hadda Masar oo aada uga cadhaysan tallaabada Itoobiya qaaday oo weliba dagaal inay qaadada markaa qarka u saarnayd, laakiin meel ay u martay ay weyday maadaama markaasi Suudaan oo inay u martay doonaysay in ay ku adkaatay. laakiin dhinaca jabhadaha inay soo hubaynayso ay Itoobiya ku eedeynaysa odhan jirtay jabhadaha TPLF iyo markaa kuwa oramada OLA iyo kuwa Beeshaangulka, dhammaan jabhadahaas oo dhan Masar baa fangaraysa ayay markaa ku eedeysaa Itoobiya. haddaba labada hogaamiye oo markaa colaad xoogani ay ka dhaxayso ayaa maanta weji isku hor fadhiisanaya. waxaana laga filayaa markaa inay wax xal ah iyo wax dhexdhexaadin ah ay isla gaadhaan, iyada oo moogtahay arrinkii ahaa biyo xidheenka yaan la buuxinin qaybtiisa saddexaad ayay moogtay Masar aada uga gubanaysay, laakiin hawshii buuxintu waabay gabagabowday. marka hadda waxa weeyaan maxaa laga filayaa waaye haddaba macno weyn u sameynaya Masar kulmaan maxayse ku heshiinayaan. waxa ay sheegtay markaasi Itoobiya in aanay moogtahay wax waxyeeleynaya labada dal iyo tallaabo moogtahay labada dal Suudaan iyo Masar waxyeelo u geynaya xagga biyaha aanay ku xadgudbaynin, iyadu laakiinse wixii hawsheeda ay qabsanayso oo dabkeeda ay ka dhashanayso. laakiin Masar waxay leedahay 90% biyuhu way yaraanayaan, iminkana way sii yaraanayeen. marka xaddiga biyo qabashada la yareeya ayay ku doodaysay. adugu si kasta ha ahaatee gir iyo gir ayay arrinkoogu taagnaa. haddaba kulankoogu maanta ayuu qabsoomay, waxaana laga yaabaa markaa in qodobo muhiima inay hoosta ka xariiqaan labada hogaamiye oo markaasi ay ku afgartaan inuun markaasi xal loo helo xaddiga biyaha ee xooga badan ee la qabtay in la yareeyo. waa hagaag. dhinaca kale dagaalo culus ayaa ka socda magaalo madaxda gobolka Walega ee Nakamte. waxaana la sheegayaa in xoogaga jabhadda oramada ee OLA ay weeraradii ay wadeen ay sii laba jibaareen tan iyo markii xabad joojinta lala saxeexday TPLF. waxaana la moodaa markaa jabhadda oramadu in ay intii dagaalka lagu sii jeeday Tigreega ay awoodoodii sii xoogaysatay. waxaanay bilaabeen ilaa shalay toole weeraro aan kala joogsi lahayn oo ay ku soo qaadeen gobolka Walega. waxaanay qabsadeen magaalo madaxda gobolkaasi Walega ee Nakamte. wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaadhaya waxa ay sheegayaan in ay markaa xoogaga oramadu gabi ahaanba inta badan magaalada Nakamte gacanta ay ku dhigeen oo ay markaasi ciidamadii dowladda gamka dhigeen. haddaba dad badan ayaa waxa ay su-aal iska weydiinayaan waqtigii markaa dowladdu ciidankoodu loo daadguriyey dhinaca TPLF lala dagaalamayay ee markaasi awooddii ay lahayd iyo ciidamadii xoogganaa ee dowladda oo dhan loo raray Tigreega, maxay markaasi oo ay magaalooyin badan u qabsan waayeen, caasimadda ay usoo weerari waayeen, way aamuseen baa layidhi waqtigaasi. markaa dadka siyaasadda falanqeeye qaarkood ayaa shaki ka muujinayay in markaa jabhadda OLA ay markaa dhinacay raacsantahay la garan laayahay. marka la yidhaahdo TPLF baa heshiis lala galayna dagaalada way bilaabaan baa layidhi. markaasi dagaalo xoogan bay ku qaadaan ciidamada dowladda iyo markaa goobaha ay dowladdu leedahay. haddaba waxa dadka qaar ay ku eedeynayaan markaa jabhadda OLA in markaasi ay iyadu dhinac ay raacsan tahayba aan la garanaynin, oo markaa inkastoo heshiis ay kala saxdeen TPLF oo iskaashi ahaa sanadkii hore, haddana
heshiiskoogu maaha mid iskarab socda. Markii TPLF markaa ay xabajoojinta ku dhawaaqday oo iyadu dagaalka way sii waday sanadkii hore. Haddana imika markii TPLF weerarka lagu qaaday dowladdu ay markaa dagaalka xooggan ku qaaday jabhadda OLA dagaalka way joojisay. Haddana marka imika heshiiska lala galay TPLF waa kuwa weeraradii la bilaabay. Marka waxaa hadda la isweydiinayaa yacni dhinaceebay markaas iyagu raacsan yihiin, marna way aamusayaan marna way xoogaysanayaan. Waagaag haddaba inkastoo heshiis xabad joojina la kala saxeexday xukuumadda Itoobiya iyo markaasi kooxda Tigreega TPLF taasoo dagaalka lagu soo afjarayo, haddana weli dagaaladii ma istaagin. Waxaana la sheegayaa in ciidanka Eritrea ay weli dagaalo ka wadaan magaalooyinka Adigrat iyo Adwa. Dagaalo xooggan ayaa la sheegayaa deegaanada ku dhow magaalooyinkaasi in ay ka socdaan. Waxaana hadda la isweydiinayaa maadaama ay xukuumadda Itoobiya heshiis ku gashay inay dagaalka joojinayso, haddana ciidankii Eritrea weli TPLF way la dagaalamayaan, dagaalkiina weli wuu socdaa. Marka sideeba markaa Eritrea looga saari karaa dhulkaasi ama dagaalka ay u joojinaysaa? Waxaana hadda ay falanqeeyayaashu ku doodayaan in marka ciidanka Itoobiya heshiiska wada dowladdu ku gashay in dhammaan xuduudahoo dhan iyo gobolka Tigreeg oo dhan ay ciidanka dowladdu la wareegayaan oo markaasi ammaanka xuduudaha xitaa ay sugayaan. Ciidankii Eritrea waa ka dagaalamaya Adwa iyo Adigrat. Marka sidee bay usoo dhaafeen oo marka ay ciidankii Eritreaanka uga dhex dagaalamayaan gobolka Tigreega? Haddaba jawaabta su-aashaasi waxay tahay heshiiskii la kala saxeexday kumay jirin baa la yidhi in ciidanka Eritrea laga saarayo gobolka Tigreega. Qalinka laguma duugin, way ka baxayaan ciidanka Eritrea. Laakiinse waxaa kaliya lagu heshiiyey baa la yidhi in markaa ciidanka dowladdu ay sugi doonaan ammaanka markaasi gebi ahaanba gobolka Tigreega oo ay ahaanayaan ciidanka kaliya ee ka jira gobolka Tigreeg oo markaa hubka dhigista marka lagu sameeyey TPLF. Taasi waxay markaasi calaamad su-aal saaraysaa nimanka haddaba ciidamada Eritrea ee jooga gobolka Tigreegu iyagu weligoodba haddaba miyay sii joogayaan oo dagaalkuna markaa wuu sii soconayaa bay ka dhigan tahay. Haddaba TPLF iyaduna haddaba hubka miyay dhigi doontaa? Taasi ayaa markaa su-aal aada u adag. Dhinaca kale waxaa jirta taliyaha guud ee ciidanka Itoobiya Burhanu Jila waxaa la yidhi 2 bilood ayuu furimaha ku maqnaa oo markaasi howlgallada dagaalka uu hogaaminayay. Ninkaasi ayaa la sheegay inuu hadda tegayo dalkaasi Kenya magaalada Nairobi. Waxaanu halkaasi la kulmi doonaa baa la yidhi taliyaha ciidanka TPLF Tadesse Wareda. waxaanay labada taliye markaasi noqonaysaa kulankii ugu horeeyay ee markaasi ay yeeshaan tan iyo markii dagaalku bilaabmay. Labada taliye oo kala hogaaminayay ciidamada markaasi isku haya ama ku dagaalamayay gobolka Tigreega oo awal markaasi dagaal xooggan uu ka dhaxeeyay ayaa hadda face to face u kulmaya. Waxyaabaha laga wada hadlayo waxaa ka mid ah baa la yidhi sidii colaadda moogtay hab farsamo loo gabagabeyn lahaa ciidamadana markaa hab iyaga taliyayaashii oo hogaaminaya sidii markay loo nadiifin lahaayeen isku dhacyada looga saari lahaa si aan markaasi TPLFta iyo markaa ciidanka Itoobiya aan markale u dagaalamin sidoo kale markaa hubka dhigista sidii loo borsas galeen lahaa ama loo nidaamin lahaa hubka dhigista TPLFta. marka qodobka ugu weyn baana ah baa la yidhi in nidaamka hubka looga dhigayo TPLF iyo habka farsamo ee la raacayo inay markaa labada taliye ay ka wada hadlaan. inkastoo TPLF ay markaasi wacad ku martay heshiiskii ay saxaxday inay hubka dhigayso oo xisbi qaran noqonayso, laakiin falanqeeyaasha siyaasadda Itoobiya iyo siyaasadda Geeska Afrika waxay sheegayaan in markaa ay u egtahay sida xaaladdu hadda ay tahay maadaama ciidanka Eritrea weli joogaan baa la yidhi Tigreega in ay sida iyaguna marka hubka looga dhigaa ay noqonayso mid ay aada u adag tahay sidii loo hirgelin lahaa.